cilmi kaab aqoontaada darteed ku kaab cilmikaab.com. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa khaliid xuseen jaamac cilmikaab.com. kusoo dhawaada daawashadan aanu ku baran doono sidii aanu la soo bixi lahayn xagasha maqan, balse laakiin waxaan u baahannahay in aanu fahanno labadan sawir ama labadan jaanjus. haddaba jaanjuskan koowaad wuxuu inoo sheegayaa ee dhinaca bidix yaala laha ka samaysma xariiq toosan waxay wadartoodu noqonaysaa 180 degree. haddii xagasha x u geyno xagasha y una sii geyno xagasha z waxay wadartoodu noqonaysaa 180 degree ayay wadartoodu noqonaysaa. haddaba tan kale ee jaanjuska labaadi wuxuu inoo sheegayaa xaglaha ka samaysma bointkan ama bartan waxay wadartoodu noqonaysaa 360 degree ayay wadartoodu noqonaysaa. haddii xagasha a u geyno xagasha b una sii geyno xagasha c sidoo kalena ugu dambeyn ugu sii geyno xagasha d waxay wadartoodu noqonaysaa 360 degree ayay wadartoodu noqonaysaa. haddaba aanu ka shaqeyno tusaaleheenan koowaad waxaanu soo saari doonaa jaanjuskan xagasha maqan ee a, sidoo kalena jaanjuska labaadna waxaan soo saari doonaa xagasha d ayaanu soo saari doonaa ee maqan. haddaba si aanu soo saarno xagasha a waxaanu leenahay a oonu u geynay xagasha cabirkeedu yahay 40 degree oon usii geynay xagasha cabirkeedu yahay 60 degree. intaas waxay ii leeg tahay 180 degree maadaama ay ka samaysmatay xariiqda toosan ee ah a iyo b ay ka samaysmatay wadartoodu xaglahaas ay ka samaysma waxay noqonaysaa 180 degree bay noqonaysaa. haddaba waxaan leenahay a plus labadan marka laisku soo geeyo wadartoodu waxay noqonaysaa 100 degree bay noqonaysaa oo kula mid ah 180 degree. a waxay ku leegtahay 180 degree oonu ka jarnay markaanu soo wareejino 100 degree aanu soo wareejino. a waxay u dhigantaa labadan farqooda oo la kala jaray oo ah 80 degree. qiimaha ama xagasha a sayskeedu wuxuu noqonayaa 80 degree ayuu sayskeedu noqonaya. haddana tan kale aan ka shaqeyno waxaanu leenahay haddana tan kale sidaas la mid ah ayaanu furfuri doonaa. waxaanu leenahay d oon u geyno xagashan kale cabirkeedu yahay 132 degree una sii geyno xagashan kale cabirkeedu yahay 96 degree una sii geyno xagasha cabirkeedu yahay 80 degree waxay ku leegtahay 360 degree ayay ku leegtahay maadaama xaglahan wadartooda marka laisku soo geeyo ay tahay 360 degree ay tahay. haddana waxaan leenahay d plus intan ayaan isku soo geeri doonaa oo ay wadartoodu noqonayso marka 132 degree u geyno 96 degree una sii geyno 50 degree wadartoodu waxay noqonaysaa 283 degree ay noqonaysaa. haddaba intan waxay ku leegtahay 360 degree bay ku leegtahay. d waxay ku leegtahay 360 degree oonu ka jarnay markaanu soo wareejino 283 degree. d waxay ku leegtahay marka labadan la kala jaro farqoodu noqonayso 70 degree. d haddaba waxay noqonaysaa sayska xagashaas wuxuu noqonayaa 70 degree ayuu sayskeedu noqonayaa. tusaalaheena labaad waxaanu soo saari doonaa xaglaha maqan baanu soo saari doonaa ee ka samaysmaya xariiq toosan oo ah cabirkeedu tahay 180 degree. haddaba waxaanu leenahay e plus edan kale oo xagasha cabirkeedu u taagan tahay e plus xagashan kale oo cabirkeedu f u taagan tahay plus xagasha kale cabirkeedu f taagan tahay waxay wadartoodu noqonaysaa 180 degree maadaama ay ka samaysmeen xariiq toosan ee ah a iyo b. haddaba waxaan lagu yiri ma soo saari karna haddaba waqti isku mid ah
ma soo saari karno laba door sooma ma soo saari karno cabirkooda si aan taa aanu hadaba aanu u xalino waxna lagu yiri f waxay ku leegtahay 2e bay ku leegtahay kadib waxaan leenahay e plus e kale plus halkii f waxaan ku bedelanaa 2e baan ku bedelanaa plus kan kale waxaan ku bedelanaa 2e baan ku bedelanaa intaas waxay ii leegtahay 180 degree maadaama xaqlahan cabirkooda wadartooda ay ku leegtahay 180 degree kadibna intro dhan hadaba waxaanu bracketka kaga saaranaa aan kaga jibinaa 2e da plus 1 ayaan kaga jibinaa waxay intaas hadaba inoo leegtahay 180 degree inta markaan isku soo geeyno waa isku tibxee waxay noqonaysaa 6e waxay ku leegtahay 180 degree bay ku leegtahay halkan 6 u qaybi halkan 6 u qaybi hadaba e waxaanu helaynaa markan halka la isku qaybiyo halka e baa ku helay halkan marka 6 loo qaybiyo 1 halkan marka 6 loo qaybiyo waxa noqonaysaa 30 degree bay noqonaysaa mar hadaanu e helay f da waxay noo leegtahay 2e kadibna f waxay ku leegtahay 2e dan ku bedelanay 30 degree waxay ku leekaanaysaa markaa f waxay ku leekaanaysaa 60 degree bay ku leekaanaysaa halkan waa 30 degree xagashan kalena waxaan soo saarnay 30 degree tahay xagashan kale f9 tahay 60 degree xagashan kalena ay tahay 60 degree haddana baltan kale ee b da ah ee tusaalaha labaadna aan ka shaqeyno waxaan soo saari doonaa afartan xaqlood oo ka sameysmay bartan ka sameysmay sidoo kale wadartoodu noqonaysa 360 degree marka la isku soo geeyo afartan ayaan u baahanayna soo saarno hadaba waxaan leenahay a plus b plus c plus d is equal to 360 degree hadaba afartan xaqloodii waxay u taagan afar xaraf oo kala duwan hadaba si aanu ka dhigno qaar tibx isku mid ah aan ka dhigno b waxay noo leegtahay 2a c waxay noo leegtahay 4a d waxay noo leegtahay 3a hadaba a plus dhinaca b da waxaan ku bedelanaa 2a baan ku bedelanaa dhinaca b dan waxaan ku bedelanaa 4a baan ku bedelanaa dhinaca 3a na waxaan ku bedelanaa dhinaca c dan waxaan ku bedelanaa 3a inta waxay noo leegtahay 180 degree ayay noo leegtahay hadaba a plus 2a plus 4a plus 3a is equal to 360 degree intan waa isku tibxee marka isku soo geeyno waxay noqonaysaa 10a bay noqonaysaa haddii aan a u geyno 2a waa 3a 3a waxaa u geysaa 4a waa 7a 7a waxaa u sii geysaa 3a waxay noo noqotay 10a is equal to 360 halkan 10 u qaybi halkanna 10 u qaybi hadaba a waxay noo leegtahay marka halka 10 loo qaybiyo waa a baa nagu soo hadhay halkan marka 10 loo qaybiyana waxa weeyaan waa 36 degree okay hadaba mar haddii ay b ay noo leegtahay 2a diina waxaan ku bedelanaa 36 degree intaas markaa waxa ay ku leegtahay 72 degree bay b deena ku leegtahay sideena waxay ku leegtahay markaan 4a 36 ka ku bedelano waxay ku leegtahay 144 degree ayay ku leegtahay d deena haddaan ku bedelano 3a 36 waxay ku leegtahay 108 degree ayay ku leegtahay d deenu hadaba sidaas ayaynu ku soo saarnay xagasha maqan tusaalaheena saddexaad sidoo kale waxaanu soo saari doonaa xagasha maqan hadaba waxaanu leenahay a xagasha cabirkeedu a yahay oon u geynay xagashan kale oo cabirkeedu a u yahay oon u sii geynay xagashan kale oo cabirkeedu yahay 90 degree maadaama ay tahay xagal quman ay tahay oon ku garanayno leediga yar aan ku garanayno
equal to intaas waxay ku leegtahay 180 degree bay ku leegtahay. labadan waa isku tibxee waan isku geeyna waxay ku noqonaysaa wadartoodu 2a oo loo geeyay 90 degree waxay ku leegtahay 180 degree bay ku leegtahay maadaama saddexdan xagal ay ka samaysmeen xariiq toosan wadartoodu waxay noqonaysaa 180 degree. haddaba waxaanu leenahay 2a waxay ku leegtahay 180 degree oonu ka jarnay 90 degree maadaama aan wareejinay 90 degree wixii isku tibxaa ah dhinac baan isku marinaa sidii ahayd xeerkii aljabrada. haddaba 2a waxay ku leegtahay marka labadan la kala jaro farqoodu wuxuu noqonayaa 90 degree ama differenceskoodu. halkan 2 qaybi halkan sidoo kalena 2 qaybi. eedeen waxay noo leekaanaysaa marka labadan lasku qaybiyo halka a baa nagu soo hadhay markaanu laba u qaybino 90 degree waxay noqonaysaa 45 degree ayay eedeen noqonaysaa. halkan xagashan waxay ku noqonaysaa cabirkeedu 45 degree waa soo saarnay sidoo kale xagashan kalena cabirkeedu waxay noqonaysaa 45 degree xagashan kalena cabirkeedu 90 degree. saddexda xaglood haddii isku soo geeyno waxay wadartoodu noqonaysaa 180 degree ay wadartoodu noqonaysaa. hanu ka shaqeyno sidoo kalena bida ah oo sidoo kalena lagu yiri raadi ama soo saar xagasha maqan. si aan haddaba xagasha maqan u soo saarno waxaanu leenahay xagasha cabirkeedu b u yahay ayaanu geynaa xagasha kale cabirkeedu u yahay b plus 15 degree sidoo kalena xagashan kale cabirkeedu yahay 85 degree. intan waxay ku leegtahay 180 degree bay ku leegtahay. waxaan ku xigsiin doonaa wixii isku tibxaa ayaan dhinac isku geyn doonaa. labadan markaan isku geyno waxay noqonaysaa 2b plus labadan markaan isku soo geyno wadartoodu waxay noqonayaan 100 degree bay noqonayaan oo plus ah oon sii qorayba. intan waxay ku leegtahay 180 degree bay ku leegtahay. 2b waxay kula mid tahay 180 degree minus 100 degree. 2b waxay ku leegtahay marka labadan la kala jaro waxay noqonaysaa farqoodu 80 degree bay noqonaysaa. halkan 2 qaybi halkanna 2 qaybi. b waxay ku leegtahay 40 degree ayay b ku leegtahay. haddaba xagashan maxay noqonaysaa xagashan waxay noqonaysaa 40 degree marka b-da soo saarnay oogee 45 degree xagashaas waxay noqonaysaa 65 degree bay noqonaysaa cabirkeedu. xagashan kale waxay noqonaysaa 40 degree. haddaan imkiintan isku soo gelin 45 degree 85 degree oo nu geynaa 40 degree oo xagasha b-da ay tahay xagashan kale b plus 15 ka oo ay tahay xagashooda cabirkeedu soo saarnay 65 degree waxay wadartoodu noqonayaan 180 degree bay wadartoodu noqonayaan.